kamid tahay kuwa samirka yar ogsoono in lacagtaada aad u diiqaysid ama aad u yaboohaysid kuwa samirka badan waxaa jira mar walbo suuqani forex haddii aad ku jirtid aad maqli doontid oo ah fear of missing out markii trade aad istiraay trade-kani waa ku dhaafayaa oo trade-kani ku degdeg ama qaado oo aanan runtii ka joogsanin fursaddan iyaysan ku dhaafin haddii hadalkaaga ama fikirkaagu sidaas yahay waxaad ogtahay inaadan ahayn qof ku shaqaynaya wax la yiraahdo blind waxa weeyaan waa waxa ku degsan ama qorshaha aad maalinta ku soo talagashay marka calaamadaha lagu garan karo qofka marka inuu FOMO oo isticmaalaya maxaa kamid waxaad ku degdegaysaa entry-ga haddii aad aragtid candle aad u weyn oo u dhaqaaqay dhanka aad doonaysay waxaad iska indhantareysaa guud ahaan sharciyada ku degnaa kadib markaad gashid oo aad ku qasaartid waxaad dareemaysaa qoomamo ama shalayto waxaana leedahay haddii aan sugi lahaa confirmation-kayga ama aan ku degnaan lahaa qorshahayga sidaan maysan ugu dhici lahayn sidaa darteed sidee looga hortagaa wax la yiraahdo FOMO ama fear of missing out inaad la timaadid wax la yiraahdo blind cad samayso marka qorshe ku degsan sadabka aad qaadanaysid ku xulo inaad rule ku qaadatid maalintii haddii aad gaartid wax la yiraahdo 2 ama 1 khasaare ah maalinta suuqa iskaga tag oo laabtoonkaaga isku laab xitaa haddii fursado waaweyn ay muuqdaan qor journal oo ka hor intaadan suuqa galin qor haddii aad gashana qor ciribta dambana wixii ay ku dhamaatana qor xusuusnaa suuqa forex mar walba waxa uu bixinayaa fursad cusub haddii hal fursad ay ku dhaaftaa moodin inay fursad kale soo laaban doonin fursad kale way soo laabanaysaa laakiin adiga ayaa dadaal laga rabaa